ciyaartoyga soo orday wadanka Jamhuuriyadda Djibouti inuu ku soo gaaro stadiumka wadanka Djibouti uu ordayay gabagabada uu ximanaya xariijinta goobta xariijinta loogu tala galay ayuu soo istaagayaa muuqaalka marka ugu horeysa waa halkaas finish line waa ka finish line baan taaganahay halku ka soo baxay imika halkaas uu soo maraya ilaa uu jara half marathonka oo dhameystiro finish line waka kabax baa la leeyahay kabax u banay baa la leeyahay wadanka Djibouti uu ordaya waa ka uu soo socdaa isaga hogaaminaya taarabuulka magaalada Hargeysa dadku saasi wada taagan yihiin Djibouti uu ordaya finish line uu guuleystay okay wadanka Jamhuuriyadda Djibouti uu ordayay ciyaartaygan waa ka tiimkiisii baa ku xoomay wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee ku guuleystay half marathonka magaalada Hargeysa wadanka Jamhuuriyadda Djibouti uu ordayay kadib 22 kiiloomitir جالية reer Djibouti laftooda reer Djibouti baa dabaan degaya Djibouti waxay noqotay wadankii ku guuleystay half marathonka ka qabsoomay maanta halkan iyadoo ciyaartoygan oo ka socday wadanka Jamhuuriyadda Djibouti وكا اوه كدب دال دير همبليو وهاجاك سفر كي صوب العمي ابارسه كصوب العمي وحو كسو دماده استاديوم في مدينه هرقيسه dadku way soo jirjirayaan calanka Jamhuuriyadda Djibouti ayuu qaaday waxaana noqday qofkii ugu horeeyay ku guuleystay marathonkaasi isagoo kaalinta koowaad buu galay intaas saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya live-ka wariye Axmed Seeko isla markaana aad kala socoteen half marathonka magaalada Hargeysa ka qabsoomay intan mar kale ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.